بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. walaalaha Soomaaliyeed meel aad joogtaanba Ilaahay subxaanahu wa tacaala idinku ammaan yeelo. cidii dhibka Allah ka qaado, cidii dan la Allah u oofiyo, inta baahan Allah deeqo, inta bugta Allah bogsiyo, intii dhibatay Allah u naxariisto, waalidiinteena Allah u naxariisto, annagana Allah nooga daba naxariisto. dalka dadka diinta iyo dowladnimadaba Ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo xifdiyo, ana inoo badbaadiyo. waxaan ka hadlayaa qodob aad muhiim u ah oo ku saabsan shir maanta ka dhacay New York iyo Soomaaliya ka maqan. waxaan ku bilaabayaa waxaan dhageystay hanjabaad iyo dhaar mufsidkii al-shabaab afhayeenka u ahaa Cali Dheere uu soo duubay oo uu ku hanjabayo inuu dadka Soomaaliyeed baabi'in doono. waxaan leeyahay waxba noolama aadan harin. Soomaali mashruuc ajnabi ah oo ka xun oo lala soo aado mashruuca al-shabaab ma jiro. mashruucii ugu kharibnaa oo dalkaas ka hirgala ayuu ahaa al-shabaab. dadkii iyo diintiiba waa la isnacsiiyey. dadkii bay diintii ku direen, dadkii bay bahdalo kala daaleen, dadkii bay addoonsadeen, dadkii bay baad iyo xaaraan lacaga ka qaateen. waa gaangis. ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadda ha ka qabto. diintii waa la nacay iyaga dartood. qofkii wadaadoo hadla waa lagu soo boodaya, maxaa yeelay wadaadnimadii baa la nacay. waxaa ka horreysay iyadoo la barakaysto wadaadka oo madaxa gacanta laga dhunkado oo weesada iyo kabaha loo qaado oo la dhaqaaleeyo, la ixtiraamo, lagu ixtiraamo inuu ahlullaahi yahay. waxay maraysaa markay bannaysteen masaajidadii ugu dhaceen oo dadkii masaajidadii ku laayeen oo ay bannaysteen dadka dhaqaalahoodii iyo lacagtoodii oo ay bannaysteen cirdigoodii iyo gabdhahoodii xoog kaga guursadeen. waa mufsidiin aan dhinacna noo dayn oo ay bannaysteen caqiidada iyadii oo yidhahdeen murtadiin baa tihin oo gaalaa tihin. iyagana ay yihiin qolada gaaladu wadato oo ay si kasta noo bannaysteen bay haddeer ma garanaysaa haddana noo sii hanjabayaan. oo maxaa noo reebteen oo noo haray? nin qoyani biyo iskama dhowro. soo daa waxaad haysid Cali Dheere, calayka lacnatullah. maalin baan ku qabanaynaa. maalinta lagu qabto ilaahay waxaan ka baryayaa inaan joogo oo daawanayo, inkastoo aan ka xumahay siyaasiga Soomaaliyeed oo aan ixtiraamka u hayn ummadda Soomaaliyeed oo mid adoo kala ah intuu hadda bari iska yimaado aad dhici karta intaad timaadeen wasiir lagaa dhigo. nasiib darrada dhacday ay tahay. haddana dadka Soomaaliyeed waxaa ugu baaqaya waa nafla caari. waxaa ii muuqda inay gubtay oo ay ka kululaadeen qabaa'ilkii ku kacay. qabaa'ilka ku kacay waxaan leeyahay haw kala harin. kuwaan kicin oo kalena haddaa jaanis haysataa. nimankii waa baqadirir baxsad weeye. meelay u cararaan bay raadinayaan. adiga iyay kuu soo cararin. nin abeese koriyow adigaa u aayine berri buu ku cunayaa haddaad soo dhaweysatid. reer kasta iyo qabiil kasta hub waa ka buuxdaan markaasaad joogtaan iska dhacsha oo ilaahay intaad rag iska dhigtaan oo ilaahay tala saarsataan haddaad wallaahi ku dhimataan dagaalkooda jannaad ku galaysaan. nebigu sal alla alay wasalam wuxuu yidhi khayru lqatla man qataluuh. dadka la laayo waxa ugu khayr badan kuway khawaarijtu layso. nimankaa khawaarijta ah laaya oo iska dhacsha. wuxuu yidhi haddaan anigu xaadiro xilliga ay joogaan laqataltuhum qatla caad. sidii caad loo dilay baan u layn lahaa. reer caad sidii ilaahay u halaagay baan u layn lahaa. ma ujeeda kilaabu naar buu yidhi xadiis kalena. waa naarta aydeeda wey. ayda naarta joogta wey. nimanka dadka gubaya oo dadka biraynaya sidii xoolihii biraynaya oo mufsidiinta oan xishoodka lahayn, xataa gumaysigii iyo gaaladii cadowga ahayd kuwa soo dirsaday sidaa nagulama kicin. say nagula kiceen iyo waxay noo geysteen iyo bahdalada iyo dhibaatada waxay nimankaasi nabadeen. xataa gumaysigii dadka addoonsan jiray nama badin. ilaahay subxaana wa tacaala ummadda idinka qabay. intaasaan ka oranaya. waana u hambalyeynayaa dadka hadda la socda oo la dagaalamaya oo kasoo horjeesta oo ku kacay. waan u hambalyeynaya. iska dhacsha, la dirira, banaanka iska dhiga. xilligan hadda ah xilliga la rabo way qolyaha dhaqaaluhu, qolyaha lacaguhu inay lacagta ka xirtaan. intaas iyagaan ka oranaya. inta kale waxaan ka oranayaa madaxweynihii ummadda Soomaaliyeed wuxuu safar ku tegay Maraykan. safarkaasi kuwii hore oo dhan waa ka ceeb badnaa. kuwii hore oo dhan waa ka liitay. madaxweynihii wasiir buu noqday. isagaa la kulmaya wasiirka difaaca.
isagaa la kulmaya wasiirka arrimaha dibadda isagaa wuxuu la kulmayaa yacni dad hoose oo level hoose abuu la kulmayaa nasiib darray ahay waxaasoo dhan se waxaa iiga sii daran waxaa jiray process dheer oo ay soo martay waxbarashada soomaaliya wasiirada inuu la kulmo oo madaxweynuhu uu waayo wasiiradii dhigooda ahaayoo la kulmi lahaa baa ceebta ugu weyn oo nagu dhacday ah cid alla ciddii madaxweynaha brotocolka u haysa ama planner u ah trip planners dadka safarka qorsheeya ma aha dad aqoon u leh oo garanaya dowladnimada madaxweynuhu hadday u diideen wasiirkiisi waxbarashada inay fiisa siiyaan maraykanku hadday u diideen wasiirkiisi gaashaandhigga inay siiyaan fiiso maraykanku hadday u diideen taliyihiisi amniga inay siiyaan maraykanku fiisa siiyaan kii nise haystay iyo sirdoonka hadday u diideen inay siiyaan hadda inuu aadaba maahayn inuu safarkaa kansalay ahayd oo yidhaahdo waagii aan adii ogolaataan inaan raggayga kaxaysan karo baan meesha aadaya inta ka horeysana jannada inoo muddaa intuu tago new york summitka new york ka furmayo madaxdu ay kaga hadli doonto uu kaga hadlo kana tago laakiin waxaasoo dhan waxaa iiga daran oo mushkilo ah madaxweynuhu inuu isagu levelkiisi hoos isaga dhigayo wasiiro la kulmay madaxweynihii dalkuna uu dalka joogo uusan la kulmin oo soo dhoweyn oo u imaan oo magaranaysaa qaabilin waa nasiib daro waa yani waa dalkii waa la bahdalaynaya dalka iyo dadkaba waa la bahdalaynaya inuu aqbalana maaha inuuna bahdala maaha madaxweynuhu maalin walba inuu meel bahdalo taagnaado oo aanu yacyacdi naga dhammaato karaamadii iyo stagekii aan ka taagnayn indhaha caalamkana aan hoos uga dhacayno nasiib darro wey waxaasoo dhan waxaa iiga sii daran waxaa jiray shir ka dhacay london oo uu ka qayb galay ra-iisul wasaarihii hore roble iyo wasiirka waxbarashada carab shirkaas waxaa lagu qabtay london waxaa iska kaashanayay dowladda ingiriiska iyo qolada la yidhaha global partnership for education shirkaas soomaaliya labadaa nin baa uga qayb galay ra-iisul wasaaraha koox badan bay ahaayeen wasiirka arrimaha dibadda joogay lakiin wasiirka waxbarashada iyo ra-iisul wasaaraha joogay shirkaas dowladdii farmaajo xilligii ay xasan sheekh maxamuudka hadda jooga kala wareegtay dowladnimada budgetka ama miisaaniyadda wasaaradda waxbarashadu wuxuu ahaa 1.2 to 1.6% boqolkii dollar oo dowladdu haysato $1 bay siin jirtay iyo bar iyo wax ka yar bay siin jirtay waxbarashada waxay ka dhaqaajiyeen halkaas kor bay u qaadeen oo waa kubciyeen miisaaniyaddii waxay gaarsiiyeen boqolkiiba 6 budgetka dowladda boqolkii dollar $6 inay ku bixiyaan waxaa jiray dalab ka socday caalamka oo ahaa waxbarashada in kor loo qaado lacagtaas ay kordhiyeen oo 6 ah waxaa laga rabay inay gaarto say u socoto kor ugu socoto boqolkiiba 20 inay gaarto adduunku ilaa boqolkiiba 20 dhowr iyo 10 inta udhexaysa lagu la geliyaa waxbarashadu waxyaabaha ugu muhiimsan oo bulsho ay ku taagan tahay wey waxay furtay dowladdaasi 30 public school bay ka furtay magaalada muqdisho masale la yaab laan idiin sheegaya puntland ninka jooga dad baa waxay u qabaan inuu puntland u maqan yahay puntland private school weeye boqolkiiba 100 waxbarashadeedu waa private waxbarasho publicii ma jirto qoladaana waxay sameeyeen xamar ka sameeyeen 30 public school waxay heleen qandaraasyo waxbarasho si qandaraasyada waxbarashadu u shaqeeyaan waxay maamul goboleedyada siiyeen maamul goboleed kasta waxay u ogolaadeen inay samaystaan 10 school oo dowladdu ay fangarayso siciidani waad xasuustaan isagaa geliyey dagaal iyo qalalaaso geliyey shahaadadii dagaal ka horreeyey isaga ma jirin oo shahaado ku saabsan oo soomaaliya iyo puntland ka dhexeeyey hadduu isagu meesha ka tagana dagaalkaasi meeshaas ku dhammaanaya ilaa iyo haddeerna xal uma hayo dadkii isagu uu madaxda u ahaa waxaan arkayay galmudug oo ka dacwoonaysa dhowr kun oo qof oo noo imaanaya xilliga imtixaanka oo imtixaankii soo bedelanaya oo noo imaanaya oona diidi karno baaxad iyo capacityna uma hayno waxaa ka mid ah 10 public school baa loo ofargareeyey 10 school oo puntland ku yaal oo ardada iyo macalimiinta iyo kharashka oo dhan ay dowladda dhexe ee soomaaliya bixiso waa xilligii farmaajo waa diiday waxaa loo ogolaaday oo loogu deeqay teacher institute-ka ku yaala garoowe in ay la wareegto dowladda dhexe kharashkiisa
oo macallimiinta la tababaro oo macallimiin 10,000 ka badan loo tababaro oo ma garanaysaa macallimiintaas ay u shaqeeyaan ummadda Soomaaliyeed ee ku nool halkaas oo iyagu ay kharashkooda dhan bixiyaan oo ay la wareegaan oo dhismaha iyo wax oo dhan xataa ay hagaajiyaan dadkiina iyadoo xumayso bedela wixii ummaddu ay keenaysayna ma ogola waxay diidayaan waxaas private-ka public ah oo free-ga ah inay dad iska helaan bay diidan yihiin laakiin dadka waxay isaga dhigaan iyaga dantooda inay ka shaqeeyaan waa isu qurxiyaan public school bay diidayaan for God's sakes ka soo soco waxaa dhacday shirkaas Soomaaliya waxay ballan qaaday uu ka qayb galay ra'iisul wasaarihii iyo wasiirka waxbarashadu waxay ballan qaaday inay ka kordhiyaan budgetkooda 6% intay ka kordhiyaan 8 bay dhaheen baan ku daraynaa boqolkiiba 14 baa gaarsiinaynaa boqolkiiba 14 markay dhaheen waa gaarsiinaynaa oo laga rabay inay 20 gaaraan si lacag aad u badan loo siiyo markay intaas sheegeen baa waxaa loo ballan qaaday oo loo commit gareeyay iyagu commitmentigaas ay saxiixeen way ballan qaadeen ayagana waxaa loo commit gareeyay $100 million oo dhaqaalaha GPE-ga nimanka la yiraahdo Global Partnership for Education ay wasaaradda waxbarashada ku bixiyaan oo kala duwan oo waxna managerial ay ku baxaan waxna ay curriculum expenses ku baxaan waxna ay technical capacity building ku baxaan waxba ay wax ku baxaan qaarkood ay ku baxaan human development ama qaarkood ay ku baxaan women empowerment qaarkood ay ku baxaan human development for education qaarba ay wax ku baxaan yacni mashaariic kala duwan oo tiro badan ayaa loo ballan qaaday Soomaaliya shirka waxaa ku xigay shir kale oo 2-3 bilood ka hor 2 bilood ka hor intaan la magacaabin wasiiradii hadda cusbaa oo wasiirkii hore ee waxbarashada iyo agaasimihiisii isaga guud maxamed xasan caabi ay kaga qayb galeen meesha maya maxamed xasan ma waxaa raacay wasiirka waxaa raacay nin la yiraahdo Siciid Guuleed nin la yiraahdo raacay oo ahaa coordinatorka GPE-da u ah Global Partnership for Education oo ah ninkaas raacay baa ka qayb galeen Faransiiska ka qayb galeen shirkaas shirkii labaad buu ahaa isla summitkaas waxaa yani loogu gobol xaarayay shirka maantaydan hadda aan idinla hadlayo aniga maalin bay ii tahay ka socda New York buu ka socdaa waana maalintii ugu dambeysay wuxuu socday 16 iyo 17 maanta oo 19 uu xirmaya waxaa la rabay 16 iyo 17 in wasiirkii uu ka qayb galo iyo hal qof oo la socda wasiirkii iyo waxaa tagay ninkaas maxamed xasan caabi oo ahaa DG-ga ayaa safaaradda Mareykanka ka doontay fiiso waxaa la ii sheegay caabi in la siiyey fiiso warqad loogu dhuftay xaashi oo lagala bakhaylay baasaboorka in lagu dhufto wasiirkana in loo diiday shirkaas saasay kaga baaqdeen wasiirkii iyo tiimkiisii waxaa ku xigtay maanta oo maalinta ugu dambaysa ah national statement inuu bixiyo madaxweynuhu maanta waa madaxweynayaashii waddan walba wuxuu sheeganayaa dhibaatada haysata xasan sheekh maxamuud waxaan maqalnay isagoo leh al-shabaab waa ideology khariban aragti khariban weeye aragti waa lagula diriraa aragtida ka muhiimsan waxbarashada in deradicalization lagu sameeyo oo dadka maskaxda laga khaldayo iyo dhaqamada meelaha inta laga keeno lagu abuurayo iyo juqraafiyada beenta oo loo qorayo iyo taariikh aynaan lahayn oo dadka lagu canqarinayo yacni inay Soomaaliya intay meesha tagto ay sheegato annaga maanta waxbarashadu waxay noo tahay national security issue al-shabaab aan saynaa ideology iyo aragti dhalinyarada aan ku kobcino oo arrintaas argagixisanimada ah ka soo horjeeda yaan u baahannahay in nala ka kaalmeeyaan rabnaa commitmentiga iyagii ahaa 14%na waa wadaynaa caalamku hadda waa godlan yahay dhinaca waxbarashada markii Afghanistan ay Taliban la wareegeen baa waxaa la soo saaray sharci ay caalamku leeyihiin ama UN to ay leedahay transformation of education program ah in waxbarashada horta bal dib loo daraaseeyaba kulligeed oo waxbarashada transform lagu sameeyo oo la waafajiyo casriga hadda la joogo la waafajiyo waxbarashadaas oo Soomaaliya marka maadaama hadday sheegato maanta oo doodeeda ay gudbisato
waxaan filaynay ugu yaraan 200 milyan oo dollar markay ugu yaraato tii hore oo kasii yarayd oo ay magaranaysaa dowlad cusub baan nahay dagaal baan nahaya al-shabaab weerarkiisa hadda nagu socda ideologigan kula dagaalami lahayn baan rabnaa waxbarashada inaan ka galnaan rabnaa ardayda inaan waxbarnaan rabnaa culimada macallimiinta inaan waxbarnaan rabnaa inaan fikirkan xagjirnimada dadka ka saarnaan rabnaa dhaqaalaan u baahannahay 200 milyan baa la siin lahaa oo mashaariica oo waxbarashada kor loogu qaado waxaa imaan lahayd in Soomaaliya ay ka hirgasho waxbarasho aan lacag ahayn sidii tii aynu haysanay dowladdii maxamed siyaad barre raxmatullaahi calayhi 12 sano free ahayd ilaa jaamacadda meesha ugu sarreysa saasoo kala imaan lahayd madaxweynihii xagee buu jiraa aaway madaxweynihii maraykanka aaday maraykankana waa ku lugo-ay waana ku ungoobay wuxuuna la kulmay wasiiro isaga ka hooseeya markii shirkaanu uu yimi oo wasiirkii uu baaqday oo soo bixi kari waayey oo ay ahayd maanta in la yiri madaxweynaha loo qoro speechka loo diyaariyo isagoo meesha ka hadlo madaxweynuhu wuxuu yiri maya islaan eedda inoo ah baa dhimatayo islaantii waan soo booqanayaa xaggaan aadaya waxbaan ka aasaya runtii waa nasiib darro priorities iyo protocol ma jiro madaxweyne protocolkaaga bedel madaxweyne tree planningkaaga bedel madaxweyne ha isbahdilin ilaahay baa ku abuurtay niyo ha isbahdilin annagana hana bahdilin adna ha isbahdilin annagana hana bahdilin sharafteena iyo ciisadeena iyo karaamadeenna ilaali madaxweyne madaxa kor u qaad ilaahay baa ku leh wax badani kuuma harine cimri tegay ceeb laguma sagootiye in adeerow hashta ka xig waxyaabo badan iska dii iska daa safaradan aad iskala duulduulaysid meel walba u duulaysid iska dhaaf waxba ka faa'iidi maysid aan ahayn bahdalo aftar bahdalo waxaan dhegaystay BBC doo sheegaysa dadkii dignitarieska ah ee soo gelaya meesha madaxweynehena ma aysan sheegin dhowr qof oo caddaan ay sheegeen madaxweyneyaal kadib waxay sheegeen dad baadiyaho lord hebel iyo lord hebel iyo lord baa la akhriyay iyo others baa la yiri otherskan ku jirnaa oo meelaan lagaaba rabin waana qoladiina gumaysan jirtay dalkeenna habartii bixisay wey habartii dalkeenna intay qaybisay qaybna Kenya siisay qaybna Ethiopia siisay habartii wey habartu maaha qof cusub iyaday ahayd gacanteeday ku saxiixday qoftii gacanteeda ku saxiixday Soomaali galbeed iyaday ahayd oo Ethiopiaanka siisay marka inaan qoftaas baroor diiqdeedii ku gafno oo ku weyno waxbarashada deeq aan u heli lahayn oo Soomaaliya ay ka maqnaata meeshii message-ka ay diraysaa waxa weeye Soomaaliya waxbarashada dan kama leh priority uma aha muhiimadna uma leh sidii looga daba tegi lahaa madaxweyne adaa lagaa rabaa jini ninkii keenaa baxshee waxbarashadii aan ka baaqanay sidii looga daba tegi lahaa adaa lagaa rabaa bal markaan haddii ay taasi ku dhaaftay tiim dhan u diyaari oo hawshaa u xilsaar inay ka mira dhaliyaan oo message-keeni laga dabageeyo oo UN-ta haddii akhris loogu geyn waayo video intaa ugu duubtaan ugu dira oo qoraallo u sameeyo u dira khayr badan baa idin rajaynayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu